jaaliyadda Soomaaliyeed ayaa xaflad soo dhaweyn ah u sameysay wasiirka socdaalka iyo jinsiyadaha dalka Canada Mudane Axmed Xuseen oo booqasho ku yimid dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. Sidoo kale xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo mas'uuliyiin ka tirsan dawladaha Soomaaliya iyo Ingiriiska. Mudane Axmed Xuseen ayaa uga warbixiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ahmiyadda ay u leedahay fursadaha waaweyn ee dhan walba ah ee ay haystaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool wadamada qurbaha. hadda waxaan sharci cusub baan soo wadnaa wali ma gudbin sharcigaas laakiin wax yar baa ka dhiman sharcigaas wuxuu leeyahay qofka ardayga ah waqtiga uu joogo Canada in loo xisaabo inta uu duruusta qaadanayo. Canada waa wadamo kooban oo adduunka ka mid ah oo dhahayo meesha ka timid iyo dhaqankaaga iyo diintaada iyo waxyaalahaas aad qiimeysid ma ku dhaheeno ka tag waa haysan kartaa iska dhaaf inaad haysatid dawladda waxay kugu siinaysaa lacag iyo qarash iyo barnaamijyo inaad xustid dhaqankaaga iyo meesha ka timid iyo luqadaada so taas waa important laakiin waxa u moodaa dhinacii kale in la iloobo oo ah community-dana inay ayaga ku dadaalaan inay wadankii la qabsadaan markaan dhahayo la qabso wadanka ma ka wado wax walba iska qaado laakiin waxaan ka hadlayaa waxyaalaha wanaagga ah waxbarashada inuu qofka shaqaysto inuu qofka isku dayo xaafadiisa iyo magaaladiisa iyo wadanka uu degan yahay inuu horumarkeeda ka shaqeeyo intuu ka walwali lahaa siyaasad iyo kursi 10 kilomitir marka arinta ugu dambayso aan ka hadlayo waxa waaye dhalinyaradana waa in lagu qasbaa in jagooyin oo mas'uuliyad inay qaataan مثلا baan isiinaya qofka bini aadamka cajiib waay wixii aad ka filatid buu noqonaya hadaa maalba ku tiraahid wax badan adiga ma ka filanay wax badan ma keenay waa arin jirto waa la miisaamay arinta marka waxaan ku tusinayaa wiil 30 jir ah oo hooyadiisa socks-ka ka daboodo waxa la socks-kaaga ilowda dadaysa waa ka daboodo asaga hadhoodii system-kaas ku koraya meesha ka wadaya waxa kale ku tusinayaa mid 14 jir ah oo loola dhaqmay nin weyn ama inan weyn oo la yiri qof weyn baa tahay mas'uuliyadda la saaraya mas'uuliyadda waxa laga yaabaa bisha koowaad ama weeyga koowaad inuu ka baqo qofkii uu yiraahdo waxaan aniga ma qaban karay 14 jir ah laakiin markii lagu wado oo leeyahay ma nin weyn baa tahay soo weey waa sameyn kartaa facaya reer dhan bay dhaqdaan hadii la dhaho oo lagu celceliyo waxa arkaysaa qofkii oo 14 jirkii oo akhyaar noqonayo oo kala arag wax uu maamulaya marka expectation-ka ilmaheena aan siinayno aan ka daayno ya jaceelkan oo leenahay sugsan ka daba wadayna oo aan u maleynaa jaceel ma waa baahdileena waa booqashadii ugu horeysay ee uu Mudane Axmed Xuseen ku yimaado dalka Ingiriiska tan iyo markii loo doortay xilka wasiirnimo ee wadanka Canada. Yusuf Garabay, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, London.